mahad u celinayaa dhammaanteen rabbi subxaanahu wa tacaala oo noo suuro geliyey arrin aan in badan ku hamiyeynay oon ballan qaadnay oo ahayd kadib xabsigii aan ka soo baxanaya xaqdarradii ummadda soomaaliyeed kacdoonkeedii guud ahaan sida ay u garab istaagtay qadyaddii sida ay uga xumaatay dhibaatadii gaadhay sida ay hiil iyo hooba aynan ugu kala hadhin sida qalbigeedii iyo caqligeedii iyo dhaqdhaqaaqeediiba ay ugu mideeyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa marka koowaad waxaan mahad u celinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala noo suuro geliyey arrin hadda ka hor aan sheegnay xabsiga markii aan ka soo baxay bishii julaay 8deedii oon ballan qaaday inaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto aan soo salaami doono aan u mahad celin doono meeshaan ka bilaabi doonana ay noqon doonto somalilan caasimaddeeda hargeysa aad baan ugu mahad celinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala taa noo suuro somalilan xukuumadda xisbiyada mucaaradka ah culimaa udiinka counsilka ii sheeg golaha deegaanka maayirka cid walba dhallinyarada salaadiinta dhaqanka bahda saxaafadda ayadoon loo kala hadhin sida ay noo soo dhoweeyeen iyagoo intaasuba shacbigii wakiilka ah sidaa quruxda badan ay noo soo dhoweeyeen ay qorraxda ugu taagnaayeen ilaa aan ka soo gelaynay eerboodka ilaa saaka iyo xalay aan ognahay inay ku jireen runtii tabaabasho iyo u diyaargarow inna loo soo dhoweeyey si ciise iyo sharaf iyo walaaltinimo iyo karaamo leh aad baan ugu mahad celinayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa walaalayaal daqiiqada kuma soo koobi karno inaan idin dhahno waad mahadsantihiin waxaynu isku leenahay abaal wakhti dheer shaqayn doona hiil iyo hoo sidoo kale waxaan idinka sidaa salaan aad iyo aad u baaxad badan jabhadda waddaniga xoraynta ogaadeeniya guddoomiyaheeda admiraal maxamed cumar cismaan iyo xogayaha guud ee jabhadda cabdiraxmaan sheekh mahdi maadey oo ayaguna u diyaarsan maalmaha soo socda inay soo booqdaan somalilan hargeysa ay iman doonaan iyo waxay ku dari karaan oo kale sidoo kale wuxuu noqon doonaa kolley dhaqdhaqaaqoodaas mid aad ula socotaan waxaa u qorshaysan inay guud ahaan ay ummadda soomaaliyeed oo walaalaha ah oo qadiyaddan aad u taageertay inay u mahad celiyaan wadaagaan wixii hiil iyo hoo iyo iskaashiya waxaynu nahay dad walaalaa oo dan walba ay ka dhaxayso yaynu nahay hadalladeenna dib baan u dhigan doonnaa intooda badan aad iyo aad baan walaalayaal idinku mahad celinayaa dhammaantiin u malayn mahayo hal qolo oo magac lahayd oo meeshan ka maqan inay jirto ma aqaan inay sooraan iyo jawaan joogaan laakiin intii kale oo dhan way joogaan golihii guurtiga oo runtii isaguna golo tala badan ahaa golaha wakiilada shacbiga ool aan isku darno wax oo dhan iyo intaan carabka mariyey dhallinyaro bahdiina saxaafadda guulaysta waad mahadsantihiin salaam